dib u dhiska dalka, dowladnimada, dhismaha ciidamada, amniga, maaliyadda, arrimaha dibadda, arrimaha gudaha, arrimaha bulshada, meelmarinta sharciyada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhammaanba qaybaha kale ee dowladda ayaa laga xaqiijiyay guulo wax ku ool ah, iyada oo guulahaasina waaga yihiin kuwo si xawliya u socda. si bulshada Soomaaliyeed u helaan adeegyada nolosha, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso hay'adaha dowladda ee laga rabo fulinta shaqada ay u baahan yihiin dadweynuhu. si yoolkaasi loo gaarana, waxaa biyo kama dhibcaan noqotay in la dhiso hay'adaha dowladda. isbeddelka socda ee amniga dalka. amnigu waa laf-dhabarta jiritaanka dalka iyo dadka. la'aantii suurtagal ma ahan in la noqdo dowlad. waddan kasta heerkiisa nolosha iyo horumarka uu doonayo inuu gaaro waxa ay ku xidhan tahay sida uu u hagaajiyo amnigiisa, si muwaadinka iyo maalgashaduhuba u helaan xorriyad iyo nabadgelyo ay ku noolaadaan. dowladdu waxa ay mudnaan ka dhigtay wax ka qabashada amniga, iyadoona garowsatay in wax ka qabashada dhibaatada amni darrada ee ka jirta dalka ay tahay musiibada ugu daran ee haysata dadkeenna. haddaba si guul loo gaaro, laga soo bilaabo Febraayo 2017 markaa uu xafiiska dalka la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa hortobin laga dhigay dib u habeynta ciidamada qalabka sida, tayeynta, joogteynta mushaarka iyo daryeelka ciidamada. dadaalkaasi hagar la'aaneed durba waxa uu suurtageliyay inay soo noqoto kalsoonidii iyo haybaddii lagu qabay ciidamada qaranka, taasi oo sababtay in guulo laga gaaro dagaalka ka dhanka ah argagixisada, yaraynta dembiyada iyo niyad dhiska ciidanka oo gaartay heer sare. waxaana xusid mudan in muddo dheer kadib la arkay dhallinyaro Soomaaliyeed oo isku garbinaya ka mid noqoshada ciidamada qalabka sida. shabaab waxay ku shaqeeyaan siyaasad shisheeye ku shaqeeyaan, marka yeysan idin qalbi jabin, marna ha baqina. alla nafta qaada, kulligeen waxaan u dhalannay inaan dhimanno wakhti ahaataba, laakiin waxaa ugu xun adduunka inaad ku noolaataan ihaano iyo sharaf xumo iyo gunnimo. muddada uu talada dalka joogay madaxweyne Farmaajo, qaybaha isbedelada lagu sameeyay waxaa ka mid ah horumarinta ciidamada, iyada oo la fulinayo ballanqaadkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadanaa tayeynta ciidamada qalabka sida. waxaa si hufan oo hagar la'aan looga shaqeeyay tayeynta ciidamada iyo hay'adaha amniga. arrintani waxa ay keentay in la horumariyo xiriirka laamaha amniga, si sare loogu qaado wada shaqaynta iyo qorshaynta wadajirka ah ee hay'adaha ka wada tirsan barnaamijka isku dhafka laamaha amniga ee dowladda iyo kala warqaadashada guddiga amniga iyo cadaaladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. dejinta iyo hirgelinta qorshaha amniga qaranka. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dejisay qorshaha amniga qaranka oo ku dhisan in la helo ciidan tayo leh, la awoodo dhaqaalihiisa, isla markaana leh hannaan isla xisaabtan. waxaana saldhig looga dhigay qorshaha amniga qaranka qodobada kala ah: qorshaha qaab-dhismeedka amniga qaranka, qorshaha istiraatiijiyadda qaranka ee wakhtiga fog 3 sano ilaa 5 sano ee laamaha amniga heer degmo, heer dowlad goboleed, gobolka Banaadir iyo heer federaal, qorshaha isku dhafka ciidamada, qorshaha iyo fulinta howlaha la xiriira arrimaha xasilinta ee qorshaha kala guurka, qorshe howleedka xasilinta ee heer dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir, iyada oo laga tix raacayo istiraatiijiyadda xasilinta guud ee dalka. dib u habeynta iyo diiwaangelinta ciidamada. diiwaangelinta iyo dib u dhiska ciidamada qalabka sida, gaar ahaanna ciidanka xoogga dalka, waa guulihii ugu weynaa ee la gaaray muddo xileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana xusid mudan diiwaangelinta ciidamada xoogga dalka, hirgelinta 5 habraac ee ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka ee golaha wasiiradu ansixiyeen oo kala ah maamulka, maaliyadda, ciidanka, gaadiidka, saadka, hubka iyo rasaasta. runtii waxaad gaarteen guulo runtii taariikhi ah ayaa gaarteen, waana meesha ay ka bilaabanayso dowladnimadeenna iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. maxaa yeelay see mushaar loo bixiyaa haddii ciidankii aan la garanayn? marka haddee in bac lagu qaado oo sidii la rabo loo bixiyo, annagu runtii muddaan ku soo jirnay oo waa u dul qaadannay runtii.
oo weliba aan ku guulaysan inaan mushaaraadkii aan si joogto u bixin annagoo og inay khaldan tahay haddana waa ku mahadsan yihiin saraakiishii nagala qayb gashay iyo askartiiba inay oggolaadaan in la maro sida saxa ah oo askariga dhabta ah iyo meesha uu joogo iyo garaadihiisa in la hayo si aan u ogaanno yaa shaqayn kara oo diyaar ah iyo yaa howlgab ah iyo yaa maxaan ku idhaahdaa curyaan ah oo u baahan in maaragtay qadar yeelo sharciyada iyo ciidamada qalabka sida si loo adkeeyo aasaaska sharciga ee ciidamada qaranka loogana dhigo kuwa sharciga ku dhisan una hoggaansan waxaa la meel mariyey sharciyada iyo xeerarka kale ah xeerka afduubka iyo burcadbadeedka sharciga ilaalinta sirta qaranka dib u eegista sharciga xaqsiinta ciidamada qalabka sida dib u dhiska xarumaha hay-adaha amniga laga soo bilaabo 2017 waxaa dayactir iyo dhisme lagu sameeyey xarumaha ciidamada qalabka sida iyada oo aan ka xusi karno dhismaha xarunta booliiska iyo ilaalada xeebaha dayactirka iyo dhismaha xarunta booliiska heer federaal iyo xarumaha booliiska heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir dhisidda xarunta ciidanka kumaandooska danab ee heer qaran ee 5 qayb ee ciidanka xoogga dalka sida ku xusan heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka dib u dhiska iyo qalabaynta ballaaran ee lagu sameeyey xarunta dhexe ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo dib u dhiska iyo qalabaynta wasaaradda difaaca ciidamada qalabka sida waxaa la siiyey muhiimad weyn dhanka daryeelka iyaga iyo ubadkooda waxaana laga xusi karaa guulaha laga gaaray hirgelinta hannaanka mushaar bixinta tooska ah iyada oo xuquuqda ciidanka si toosa loogu shubo koontada gaarka ah ee askari kasta ku leeyahay bangiga halka hannaankii hore ee xaquuqsiinta ciidanku uu ahaa mid ay ragaadiyeen musuqmaasuq iyo duudsi waxaa dib loo howlgeliyey xarunta agoonta booliiska Soomaaliya sidoo kale waxaa la joogteeyey xuquuqda agoonta ciidanka asluubta dawladdu waxa ay mudnaanta siisay daryeelka caafimaadka ciidamada iyada oo la kordhiyey miisaaniyadda ay dawladdu u qoondaysay lana horumariyey adeegyada gurmadka caafimaadka degdega ah ee furimaha dagaalka cusbitaalka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Madiina iyo cusbitaalka ciidanka xoogga dalka tababarada iyo tayeynta ciidamadeennu waxa ay fursado qaaliya u heleen tababarro tayo sare leh iyaga oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa si siman loogu carbiyey xoogga dalka booliiska asluubta nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sidoo kale waxaa tababarro gaara loo sameeyey ciidamada booliiska iyo daraawiishta heer dowlad goboleed waxaa qiimeyn lagu sameeyey tayada hay-adaha ee wasaaradda gaashaandhigga heer qaran iyo wasaaradaha amniga heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyada oo laga eegayo dhanka horumarrada ay sameeyeen meelaha ay u baahan yihiin in laga taageero iyo fursadaha ay heli karaan dawladduna waa ka go'an tahay wax alla waxaad u baahan tihiin hadday noqoto tababar hadday noqoto qalab iyo hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa wax walbaba inay garab istaagto mushaharaad iyo daryeel kalaba waad og tihiin inaan ku guulaysanay inaan ilaalino xuquuqda ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waana wadi doonnaa waana kordhinaynaa hadduu ay ba yidhaahdo shacabka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa inay ciidankooda garab istaagaan guulaha qorshaha kala guurka amniga Soomaaliya STB shantii sano ee la soo dhaafay dawladda uu hogaamiyey madaxweyne Farmaajo waxa ay ku tallaabsatay waxqabadyo waaweyn oo dhanka xasilinta dalka ah sugidda amniga iyo soo celinta haybadda dawladnimada waxaana dadaalada lagu xaqiijiyey soo celinta haybaddii dawladnimada ka mid ahaa dadaaladii loogu jiray sidii Soomaaliya ay dib ula noqon lahayd mas'uuliyadda sugidda amnigeeda iyada oo aan lagu tiirsanayn gacmo kale dawladdu waxa ay dejisay qorshaha kala guurka amniga Soomaaliya STB kaasi oo dhabaha u jeexay tubta ay dawladda Soomaaliya kula wareegayso guud ahaanba mas'uuliyadda amniga dalka halbeegyada iyo ujeedooyinka istiraatiijiyadeed ee xilliga kala guurka ah qorshaha gabagabaynta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo qorshaha bixitaanka ciidamadan iyada oo dhammaan la raacayo hagitaanka iyo jihaynta dawladda Soomaaliya
وعلى سعتان طبعا بدوي كوجود بعيدك حوجة الصوماليات هربرة وسمينا هدي نقول هذا دينا اسمها هدي نقول هذا دينا محوها يشجع تيينتا دينا أول با هدي نقول هذي لا تقالن كعدو قارك حسدها سداس أوجد وحن جلي دونا أدمس أو نقود بدونا ومعنى هذا أي تهاي إن دولة الصومالية أبنية قرن كودا يا أبنية دول كودا إلى وريجان dowladdu waxay arrinkaasi kala kulantay culaysyo diblomaasiyadeed oo ay kaga gudubtay waddaniyad bisayl iyo geesinimo iyo garowshiyo ay la hortagtay fagaarayaasha caalamka iyo golayaasha ammaanka Afrika iyo qaramada midoobay dhanka kale qorshahani waxa uu soo afjaray magacii iyo qaab dhismeedkii howlgalka AMISOM oo u ekaa mid joogto ah iyada oo loo bedelay howlgalku meel gaar ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS arrintan ayaana noqonaysa guul weyn oo u soo hoyatay Soomaaliya dhammaanba guulaha la xaqiijiyay ee dib-u-dhiska ciidamada qaranka iyo qorshayaasha weli socda ee gaaridda yoolalka ku xusan ajendayaasha horumarinta amniga ee aynu soo sheegnay waa kuwa u baahan joogtayn iyo dhammaystir waxaana fudud in si sahlan ay meesha uga baxaan tacabkii dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed u galiyeen soo gaaridda halka maanta aan joogno ودور لذا مدحدو أها غار المقعلي أم الدولة نو وجيو وان مهاذيني وان مهاذيني وقدرا مركلي موقتي مدحوين الربا